kulan wacan daawadayaal halkan waa Warsida TV kuna soo dhawaada qodobada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya waxaana ka mid noqonaya maxaa ka soo kordhay wadahadalkii fashilme ee u dhaxeeyay mucaarad iyo ra'iisul wasaare Roble damaca farmaajo waa dagaal sokeeye iyo dawlad la'aan maxaa yeelay mar raba in la qabto doorasho xalaal ah waxaa sidaas yiri ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre beesha caalamkana waxay madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ku cadaadinaysa in mar kale ay kulmaan dhawaanna la filayo in ay ku kulmaan xalane maxaa ka soo yeeray madaxda maamulka Jubbaland kadib markii uu afka furtay wasiir u dhow Axmed Madoobe qodobadaas iyo kuwa kale oo kamid ah halka uu marayo kiiska badda ee la filayo in 15 bisha maxkamadda ICJ ay dib u furto hagaag daawadayaal markan si toos ah ayaan u gudagaleynaa faahfaahinta qodobadii hordhaca warka aad ku daawateen waana ku mahadsantihiin sida joogtada ah oo aad ula socotaan wararka iyo macluumaadka aan halkan soo gelino aan ku bilowno maxaa ka soo kordhay wadahadalkii fashilme ee u dhaxeeyay mucaaradka iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Roble afayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa qoraal uu bartiisa bulshada ku soo qoray ku sheegay in uu rajeynayo qabsoomida shirkii go'aan looga gaari lahaa arrimaha doorashooyinka in lagu qaban doono Muqdisho sida ugu dhaqsiyaha badan sidoo kale afayeenka waxa uu qiray in ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ee xil gaarsiinta Maxamed Xuseen Roble uu rajeynayo in la sii wado wadahadaladii u dhaxeeyay dawladda iyo sidoo kale midowga musharaxiinta si gun iyo garguur leh looga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka iyo siyaasadda isdiidan qoraalka uu afayeenka soo dhigay bartiisa Twitterka kuna qornaa luqadda Ingiriiska ayaa u qornaa sida tan waxaan rajeynaynaa in maalmaha soo socda uu Muqdisho ka dhaco shirkii madaxda dawladda iyo kuwa dawladaha xubnaha ka ah si loo dhameystiro heshiiska 17 Sebtembar ee sanadkii 2020 sidoo kale mudane Maxamed Xuseen Roble waxa uu rajeynayaa in ay sii socdaan wadahadalada uu la lahaa musharaxiinta madaxweynaha si guud iyo si gaarba si xal looga gaaro heshiiska loona aado doorashooyinka hadalkan ka soo yaray xukuumadda ayaa imaanaya xilli uu fashil ku yimid shirki dhaxad oo ay yeesheen Roble iyo sidoo kale midowga musharaxiinta taas oo sida la sheegay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ka gudbi waayay qodobo ay soo jeediyeen midowga musharaxiinta ase yeeshee midowga musharaxiinta waxay ku eedeeyeen Roble in uusan ahayn qof ay talada ka go'do balse waxaan la ogeyn ay dhaheen haddii ay mar kale midowga ku qanci doonaan in ay la fariistaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda hadiiba xal laga gaarayo arrimaha doorashooyinka iyo waxa la isku hayo dhinaca kale xubno ka tirsan midowga musharaxiinta ayaa sheegay in ay muhiim tahay in dib loo bilaabo wadahadaladii fashilme ee u dhaxeeyay midowga musharaxiinta iyo xukuumadda xilgaarsiinta Daahir Maxamuud Geelle oo kamid ah midowga musharaxiinta ayaa sheegay in xal laga gaaro loo baahan yahay in ay sii socdaan wadahadalada qoraal uu kaga hadlay arrinkan ayaa waxa uu ku sheegay in la rabo in arrimaha masiiriga ah looga hadlo miiska wadahadalka Maxamed Xuseen Roble iyo midowga musharaxiinta si arrimaha murugsan ay arrintaani uga gudbaan isku soo wada duubo hadallada ka soo yeeray labada dhinac ayaa waxa uu imaanaya xilli 48 saac ee la soo dhaafay xaaladda siyaasadeed ee dalka aysan lahayn jiha loo raaco isla markaana ay murugsan tahay wali wararka Soomaaliya ayaan ku gudi jirnay qodobada ugu muhiimsan ee arrimaha doorashooyinka iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka wili si cakiran hadii aynu eegno Jubbaland iyadoo Jubbaland ay wajahayso xaalad adag oo dhanka nolosha ah dadkeeda qaar deegaanada ay ka kooban tahay Jubbaland haddana waxa maamulkaasi uu cilaaqaad aan wanaagsaneyn la leeyahay dawladda federaalka Jubbaland State ayaa waxa hogaamiye Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dhowr mar ay isku dhaceen madaxweyne Farmaajo iyo siyaasiyiinta dawladda federaalka Soomaaliya taageersan waxana Jubbaland ay marar badan muujisay awood ka baxsan maamul goboleedyada ka mid ka ah dawladda Soomaaliya inay tahay taas oo lagu xanto in dawladda Kenya xiriir dhow la leedahay isla markaana arrimaheeda ay u fududeyso magaalooyinka balad xaabo iyo doolow oo ku yaala xuduudda Soomaaliya ay la wadaagto dalka Kenya iyo Ethiopia ayaa ahaa magaalooyin ay dhaqaale xoogan leh ka soo gali jireen maamulka Jubbaland kuwaas oo kumanaan lacaga ayaa maalin walba laga qabtaa labadaasi magaalo oo midiba maraan ama ay soo galaan gaadiid ku dhow 60 gaari oo xamuul ah iyo adeegyo kale waana sababta ay muhiim u yihiin labadaasi magaalo oo ay isku haystaan madaxda dawladda iyo kuwa maamulka Jubbaland wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa dhowr jeer weeraray magaalada Balad Xawo
iyadoo ay dagaalkaasi ku dhinteen 10 qof ah kumana guuleysan in uu dib ula wareego magaalada Balad Xaabo kadib markii iska caabin xoogan uu kala kulmay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Balad Xaabo iyo Doolow, Garbaharre iyo Ceelwa waa halka ay isku haystaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamulka Jubbaland, taas oo dhaqaale xoogan ka soo gali jiray maamulka Jubbaland, waxaana ay Jubbaland adeegsanaysaa ciidamada Kenya si ay halkaasi ula wareegaan, balse dowladda Soomaaliya ayaa ka diidan in ciidanka Kenya ay tallaabo qaadaan. Waana markii dowladda Soomaaliya keentay in ay xiriirka u jarto gabi ahaanba dowladda Kenya, amarna ay ku siisay Midowga Afrika in ay dalka ka baxaan ciidanka Kenya. hase yeeshee madaxda maamulka Jubbaland ayaa haatan darbiyada madaxa ku dhufanaya, waxaana ay u muuqdaan in ay soo jilceen. bire ayaa la filayaa madaxda ka maqan Muqdisho madaxda maamul goboleedyada ee ka maqan Muqdisho sida Puntland iyo Jubbaland in ay yimaadaan Muqdisho, shirkaas oo la filaya in uu ka dhaco magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. markan haddii aynu eegno, ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda Soomaaliya ayaa afka furtay damaca Farmaajo waa dagaal sokeeye iyo dowlad la'aan, maxaa yeelay ma rabo in la qabto doorasho xalaal ah. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ka hadlay sababta keentay in ay iskhilaafaan isaga iyo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasoo keentay in Kheyre xilka laga qaado. waxa uu sheegay in la isku qabtay aan qabanno doorasho xalaal ah oo aan ciidan iyo xildhibaan musuqmaasuq lagu soo xulin. waxa la maqlaya ee la isku hayo wax kale ma aha, waa doorasho cadaalad ah ayaa dalka laga qabanayaa mise doorasho boob ah, balse anigu waxaan taageersanahay buu yiri, amaba aan u taaganahay in la soo celiyo sharafka ummadda Soomaaliyeed. waxaana doonayaa buu yiri ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya in la hirgeliyo axsaab siyaasadeed si dhalinyarada ay u soo doortaan isla markaana loo doorto. sidoo kale waxa uu sheegay in kaliya uu ka soo horjeedo in dalkan ay ka dhacdo doorasho aan xalaal ahayn oo la booba. waxaan ka soo horjeedaa doorasho boob ah oo askar in meel la geeyo ay codeeyaan ama xildhibaano xoog lagu soo xusho. aniguna waxaan u taaganahay buu yiri Xasan Cali Kheyre in dalka ay ka dhacdo doorasho dadka oo dhan ay isla wada og yihiin. 25 Julaay ee sanadkii tagay ee 2020 ayay ahayd kadib markii Xasan Cali Kheyre xilka looga qaaday kulan ay isugu yimaadeen xildhibaanada golaha shacabka muddo 7 daqiiqo ah kadib markii ay arrimaha doorashooyinka isku khilaafeen isaga iyo madaxweyne Farmaajo. waxaana xilka qaadista Kheyre gadaal ka riixayay oo garab ku siinayay madaxweyne Farmaajo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, kaas oo go'aan ka qaatay kadib markii xildhibaano qaar ay sheegeen in arrinkaasi ay qalad tahay, isla markaana loo baahan yahay in ra'iisul wasaaraha uu hor yimaado golaha shacabka isla markaana iska difaaco eedda ay u soo jeediyeen golaha shacabka. hase yeeshee waxaa arrinkaasi dhagaha ka fureystay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. ilaa iyo haatan golaha shacabka ayaa kala irdhoobay gudoonkooda kadib markii 2 gudoomiye ay raaceen madaxweyne Farmaajo, balse waxaa bannaan cidla ah soo istaagay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude oo ilaa iyo haatan siyaasadda lagu arkin tan iyo markii xilka laga qaaday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre. markan haddii aynu eegno, beesha caalamka ayaa cadaadis xoogan saartay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada in ay ku kulmaan Muqdisho maalinta beri. xog ay heshay warbaahinta Warsida TV ayaa xaqiijinaya in beesha caalamka cadaadis xoogan ay saareen sidii mar kale loo kulansiin lahaa madaxda dowladda federaalka ee muddaxileedkoodu dhammaaday iyo sidoo kale dowlad goboleedyada. ujeedka kulankan ayaa ah sidii u saxiixi lahaayeen heshiiskii 17 Sebtembar ee sanadkii tagay 2020 ay ku gaareen Muqdisho, laguna dhaqangeliyo kadib markii shirkii ugu dambeeyay ee Dhuusamareeb 4 lagu kala tagay, maadaama ay ka gudbi waayeen shuruudo labada dhinac ay is hor keeneen. wakiilada beesha caalamka ee ku sugan Soomaaliya ayaa qorshe u dejiyay sidii xal loogu heli lahaa dhaqangalka heshiiskii dhacay 127 cisho ka hor, balse waxa ay xukuumaddu Baydhabo isugu geysay xubno ka kala socday dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada qaybna ka ah maamulka gobolka Banaadir, kuwaas oo 15 bisha ilaa 16 bisha February ay ku shireen Baydhabo isla markaana go'aan soo saaray. beesha caalamka ayaa damacsan in shirka la isugu keeno madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada kaliya uu noqdo mid lagu saxiixo heshiisyadaas. waxaa heegan ah oo mar walba shirarkan diyaar u ah
madaxda dowlad goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle oo saaxiibo siyaasadeed la ah mas'uuliyiinta dowladda federaalka, waana tan keentay inay u dhaga furnaadaan kulamada hadba la isugu yeero. guud ahaan daawadayaal, wararkii aad ka daawanayseen warbaahinta Warsida TV waa naga intaa. Fadlan haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqatay, saar subscribe, la wadaag asxaabtaada oo furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela wararka iyo xogaha aan halkan soo gelino. Sidoo kale daawade, waad ku mahadsan tahay sida joogtada ah ee aad inala socoto oo aad qaybta hoose aragtidaada nagula wadaagto. Nabadgelyo.